maalinta qiyaame alxayaati اlukhra xayaati اlukhra aakhire markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisaa la siinaya qalin jabintaadii adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay papers baa lagu dhiibay waxa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan sideku doona ha ahaado haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay imtixaankaagaasi resultkiisii jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz ninka qudha guulaysta waa kanuma rabbi yidhi naar ninkii laga dhufto zuxzix ninka naarta haf laga soo siiya laga ilaaliyo laga durkiyo oo waudkhila aljanna janna la geeyo kaas baa ilaahay leeyahay faqad faaz miqyaas alfaws markaa waa kan goormuu qofku guulaystay wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya ama adduunka intaad joogteen waxaad guula ku sheegayseen oo dhammi wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay ku xigsiiyey nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka lagu kadsoomo nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala aayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya xoolaha nafta ayaan idinku imtixaamaya gaaladaa la idinku imtixaamaya iyo ahlu kitaabka iyo waxa la mid ah war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran baa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi wax badan oo idin dhiba adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi ee wain tasbiruu watattaquu sabrkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay kullu nafsin ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور